bulshada Soomaaliyeed waa idin salaamay salaan dabadeed waxaan idin wadaa fiidiyoogii ku saabsanaa barashada luqadda Englishka maantana waxaan soo diyaariyay possessive adjective. Possessive adjective waa erayada tilmaamo lahaanshooyinka ama qofka wuxuu leeyahay qofkaasi ahaado qof asiga iska hadlaayo qof la hadlaayo gabar maqan wiil maqan laba qof inaga shay iyo wixii lamid ah. Number 1 marka possessive adjective waxaan ugu qoran my, your, his, her, our iyo their ayaa qoran sida waa kuwaas erayadaas my, your, his, her, our iyo their possessive adjectives waa erayo tilmaamo lahaanshooyin. kuwan halkan ku qoran waxaa la yiraahdaa subject pronouns ayaa la yiraahdaa. Lahaanshooyin ma tilmaamaan qofka ay u taagan yihiin. I waa aniga, you waa adiga, he waa asaga, she waa iyada, we waa anaga, they waa iyaga. Okay, this is tusaale marka example possessive adjective aan rabaa inaan shaxdan dhexe soo geliyo. Okay, this is my bag, tani waa boorsadeyda. This is your mother, tani waa hooyada. This is his house, kani waa gurigiisa oo kale. This is her bag, tani waa boorsadeyda. This is our mother, tani waa hooyadeen oo kale. This is their house, tani waa gurigooda oo kale. Marka erayada dhexda ku jiro waxaan leenahay waxaa la yiraahdaa possessive adjective ayaa la yiraahdaa. Erayada dhexda ku jiro waxaa la yiraahdaa possessive adjective ayaa la yiraahdaa. Eradan possessive adjective ayaa la yiraahdaa. Halka kuwan la yiraahdo subject pronouns ayaa la yiraahdaa. So labadooda ina kala saarto muhiim waaye. Kuwan dhexda ku jiro oo my, your, his, her, our iyo their waxa loo isticmaalaa ashyaada qofka uu leeyahay ayaa loo adeegsadaa. Kana qofka nafsuhu ama naftirkiisa ayaa loo adeegsadaa. waaye haddii aan isla fahanno intaas exercise yar halkan noo yaalo aan isku dayno bal inaan ka shaqeyn karno exercise-ka. Hello, I am John. waa ku salaamay aniga John ayaan ahay. Hello, I am John. waa ku salaamay aniga John ayaan ahay. What's your name? halkaas waxaa ka maqan ereyga yo ka waxaan leenahay what's your name, magacaaga waa maxay. halkan waxaa ka maqan ereygaas yo. What's your name? Number 2, Linda is a student. Linda waa ardayad. waxaan leenahay halkan waxaa ka maqan ereyga ha school, iskuulkeeda ereyga ha ayaa halkan ka maqan. halkan waxaa ka maqan ereyga ha ayaa ka maqan. ha ayaa ka maqan. Okay, her school is in Rome. iskuulkeeda Rome ayuu ku yaalaa. Number 3, numberka 3, Ben iyo Carl are singers oo heesayaal oo waa dad heesa. meesha waxaa ka maqan ereyga their band, kooxdooda is great, koox wanaagsan waay. Number 4, numberka 4, we are students, annaga arday ayaan nahay. This is halkaas waxaa ka maqan ereyga our ayaa ka maqan. waa waxeena iskuulkeena. waayahay sida halkan ka muuqato waxaa noo qoran jawaabo ayaa noo qoran. jawaabahan halkan ayaa buuxinteedu ahayd. marka ardaygii jecel ama qofkii jecel barashada luqadda Englishka wuxuu sameyn karaa intaanan jawaabaha sameynin ayuu intii istaajiyo ayuu wuxuu sameyn karaa inuu buuxsado uu guuriyo then uu kaligiis isku dayo inuu ka shaqeeyo. So walaal fadlan haddii uu kusoo gaaro videoga channelka subscribe dheh, waa channelkaagii. waxaan jecelnahay wax wanaaga oo dadka wax u tarayo inaan kusoo gudbino. marka nagu saacid inaynu noqono dad waxtar leh